xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa sheegay in ay andaro tahay xarigii loo geystay TV-yada Horyaal TV iyo Ariel TV sida warkaasi noogu soo diray wariyaheena Cabdiqani Baafo. Gudoomiye ku-xigeenka garabka dhalinyarada xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee gobolka Togdheer ayaa andaro iyo wax laga xumaado ku tilmaamay xariga maalintii shalay lagula kacay telefishinada Ariel iyo Horyaal TV in ay xukuumaddu shalay kala soo xidhay labada TV ee kala Ariel TV iyo Horyaal TV xukuumadda waxa leeyahay war miyeydaan garanay waxa xidhaan mooyaane waxa wanaagsan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee garwadeen ka yahay madaxweyne Muuse Biixi waxa caadaysatay in ay dadka shacbiga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland u dhashay iyadoo aan kiis lagu haynin xildhibaanada Jamhuuriyadda Soomaaliland muwaadiniinta Soomaaliland iyo TV-yada ama hay'adaha warbaahinta nooc kasta yihiin in ay xidho madaxweyne waxa leeyahay oo aan waliba xukuumadda aad iyo aad ugu boorinaya inaad ka waantoodaan haddii ay noqotay meeshii xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ama dimuqraadiyadeena ku noolaynay mindi ka horgeed oo ay noqotay in midna la xidho midna la xabiso sidii la doonana xukuumadda u talaabato sharcigii iyo kala dambeyntii Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku heshiisay haddii aanay waxba ka jirin oo laga noqday xukuumadda ha noo cadayso waxaan aad uga xumahay oo aad uga xumahay wasiirka warfaafinta Maxamed Muuse Diiri isagoo aan wax allaala iyo wuxuu cuskaday aanay jirin hay'adaha warbaahineed inuu waraaq u keeno isagoo ku saxiixan yahay waraaqdiina uu diido inuu nuqul ka mida siiyo ay xaq u lahaayeen in la siiyo nuqulka wixii lagu soo eedeeyay wadarkiisa xalay tole mas'uuliyiinta labadan TV iyagoo ka hadlaya arrinka wax allaala iyo wax loo soo cuskaday iyo wax allaala iyo wax loo sheegay oo aynu shalay tole arkaynay haba yaraatee ma jirto waxaan leeyahay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi garwadeen ka yahay shalay baynu dulmi diidayna shalay baynu dulmi ka cararayna haddii maanta dulmigii aynu shalay tole ka cararayna aynu maanta inagu samayno madaxweyne 28 sanadood Jamhuuriyadda Soomaaliland jirtay waxaan u arkaa inay tahay hal bacaad loo dhisay madaxweyne ka waantooba shaqalka askarta haddii ay doonaysaan wax walba in xandaraabtaan oo waxna aydaan furina noo sheego shacbiga soo bayaamiye Cabdiqani Cabdullaahi Maxamuud Cabdiqani Baafo wararka telefishinka Royal TV magaalada Burco.